maxaa Kim Jo-yong ka dhigaya haweeneyda ugu awoodda badan Kuuriyada Waqooyi? Kim Jo-yong kaliya maahan walaashii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, laakiin sidoo kale waxaa la sheegay in uu tahay qofka labaad ee ugu awoodda badan dalkaasi. Muuqaalka siyaasadeed ee Kuuriyada Waqooyi qof ayaa kor u kacay, kaas oo soo jiitay indhaha goobjoogayaasha caalamiga ah, isla markaana si maldahan u muujinaya suurtagalnimada dhaxaltooyo. Waa walaasha hogaamiyaha hadda oo lagu yaqaan xasiloonideeda iyo saamaynta ay ku leedahay marinnada qarsoon ee awoodda. Shakhsigani waa Kim Jo-yong oo u dhowaanshaheeda Kim Jong-un ay dhalisay doodo ku saabsan suurtagalnimada in ay noqoto tan xigta haddii baahidu timaado. Waa kuma Kim Jo-yong? Kim Yo-jong waxa ay dhalatay Sebtembar 26, waxa ay ku dhalatay Pyongyang, North Korea. Waa ilmaha ugu yar ee uu dhalay hogaamiyihii geeriyooday Kim Jong-il iyo wehelkiisii Ko Yong-hui, waxaanay la dhalatay ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Waqooyi ee hadda talada haya, Kim Jong-un. Kim Jo-yong. Kim Jo-yong oo wax ku baratay dalka Switzerland oo ay weheliso walaalkeed, waxay ku noqotay Kuuriyada Waqooyi, waxaanay ka qalin jebisay jaamacadda Kim Il-sung oo ay ka qaadatay shahaado culuumta kombuyuutarka. Kor u kacdeeda siyaasadeed waxay bilaabatay 2007 markii loo magacaabay kaadiriin yar oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya Wubki. Waxay si degdeg ah uga soo baxday darajooyinka, iyada oo noqotay xubin beddelka ah oo ka tirsan xafiiska siyaasadda oo u adeegta sidii ku-xigeenka agaasimaha waaxda warfaafinta ee Wubki. Doorka Kim Jo-yong ee arrimaha gobolka ayaa noqday mid caan ah kadib markii walaalkeed uu la wareegay awoodda. Waxay door ka qaadatay samaynta sumcadda dadweynaha ee Kim Jong-un, waxayna Waqooyiga Kuuriya matashay munaasabado diblomaasiyadeed oo kala duwan oo ay ku jiraan ciyaaraha Olombikada jiilaalka ee 2018 ee Koonfurta Kuuriya. Muuqaalkeeda guud iyo ku lug lahaanshaha siyaasadeed ayaa sii huriyey wararka la isla dhex marayo ee ku saabsan saamaynta ay ku leedahay dowladda Kuuriyada Waqooyi iyo suurtagalnimada ay ku noqon karto qofka beddeli doona walaalkeed. Bishii Sebtembar 2021, Kim Jo-yong waxaa loo magacaabay xubin ka tirsan guddiga arrimaha gobolka ee Kuuriyada Waqooyi, iyadoo adkaynaysa xaaladdeeda mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu saamaynta badan dalka. Inkasta oo ay mowqifkeeda xoogga badan tahay, faahfaahinta ku saabsan nolosha gaarka ah ee Kim Jo-yong ayaa weli ah mid aad u yar oo ay qarinayaan dabeecadda qarsoodiga ah ee nidaamka. Waxaa la rumaysan yahay in uu qabo Choi Song oo uu dhalay sarkaal caan ah oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi, waxaana la sheegay in ay u dhashay 2 carruur ah. Xidhiidhka qoyskeeda iyo isirkeeda siyaasadeed ayaa ka dhigaya xudunta qoyska Kim oo ka talinaysay Kuuriyada Waqooyi tan iyo markii la aasaasay. Kim Jo-yong kor u kaca awoodda ayaa ka turjumaysa siyaasadda firfircoon ee Kuuriyada Waqooyi, halkaas oo hoggaanku inta badan u gudbo qoyska dhexdiisa. Aabaheed Kim Jong-il waxa uu beddelay aabbihiis Kim Il-sung oo ahaa hogaamiyihii aasaasay waddanka. Hadda iyadoo Kim Jong-un caafimaadkiisa iyo hogaamintiisa la eegayo, dunidu waxay daawanaysaa Kim Jo-yong oo aad u xiiseeya, iyadoo ka fikiraysa inay sii wadi doonto dhaxalka qoyska. Waxqabadkeedii u dambeeyey oo ay ku jiraan soo saarista bayaanada dadweynaha iyada oo ku hadlaya magaca dowladda iyo qaadashada mas'uuliyado dheeraad ah gudaha Wubki, waxay soo jeedinayaan in saamaynteeda siyaasadeed ay sii kordhayso. Iyadoo Waqooyiga Kuuriya ay weli mugdi ku jirto qorshaheeda isku xigxiga, Kim Jo-yong ayaa caan ku ah arrimaha gobolka lama ilduufi karo. Sida Waqooyiga Kuuriya ay u socoto mustaqbalkeeda, Kim Jo-yong wuxuu taagan yahay isgoysyada dhaqanka iyo casriyeynta, isagoo muujinaya suurtagalnimada sii socoshada ama isbeddelka gudaha gobolka hal-abuurka leh iyo kuwa xiran. In ay ku soo bixi doonto booska walaalkeed ayaa ah mid aan la hubin, laakiin halka ay hadda marayso waxa ay tilmaamaysaa in ay kaalin mug leh ka qaadato masiirka ummaddeeda.